hadda xilka waxaa shaacaysa inaa u sharaxan tahay xilka wakiilka deegaanka barwaaqo xilkan inta badan MCA-ga waxaa isku soo sharaxaan daayar ama dhalinyaro adiga maxaa kugu dhali waxa ay horta aniga faantayda hadama shaqada jiifan howlgabka noocan ka baxay kaale madax kale noqo iguma jir marka hore laakiin waxaan lahaa barwaaqo ward in qof oo maaragta madoo dhan isu keeni kara ay ku kalsoon yihiin badana dadka xoogoo dalkan yar Soomaalida guud ahaan dhaqanka tolka iyo maamulka tolka way maamulka waayo madam tunad ay yartahay marka aniga waxaan jeclays marka dadka inay dhaho war ummadan qabiil ma aha ward ma aha qof oo maaragta u noqon kara mfano ama ku deesha meeshuu ka soo galay ilaa county isu keeni kara aan raadin dadkii ayar marka waxaa sheegaysa waxaan ornaa ninka ku habboon oo haddana khibro u leh xagga maamulka intaad meesha sii joogtana ummadoo dhan ay kugu kalsooneed waxay doorbideen marka in aniga aan meesha isu soo sharxo marka waxaan dhihi karaa rabitaanka xagga dadweynaha ka imaan dhinaca dadweynaha diintana waxay qabtaa madaxtinimada haddii raadiso in lagula raadiyo haddii loo raadiyo inaad ogolaato inaad aqbashid anigana maadaama kaale ummadan baldanay dantooda waan ogolaaday because waa jirtaa aniga waa nin oday ah dad yarna oo waa jiraan oo wax qaban kara ilmaha marka xoogoo meesha ay waxyaala qaar ay khibro u leheen haddii tacliinta moog laakiin haddii maamul tooleed tahay in ay aqoonba u leheen ayagoonba kas u yeelin marka dadka waxay bideenba waqti hadda la joogo waxaad moodaa dadka guud ahaanba reer wajeer inay doorbidayeen madaxda hadda jirto in dad oo rugacda ama dad oo wax soo talin jiray inay meesha ay soo galaan ayadoo ku rajoway in isbedel ay meesha ka imaan karaan taas ay igu dhalisay ayna waa ogolaaday soo marso dhigi karo xil inta badan dhalinyarada ay u tartamaysa ku cariirinaysa waa dhici kartaa horta ilaahay ka soka dadweynaha ay ku xiran tahay nin oday oo dad nin dheeriya ka fiican waa la arkaa nin dheeriya oo ka fiican waa la arkaa aadiyad laakiin dadka waxay u doorbideen maadaama nin hadda koraba talin jiray soo tali kulli haddii nin xun aan ahaan lahaa dadka laguma soo xusheena ma badhaheen ninkan dad ilaahna dhaafi meesha ku soo celi anigana waxaan ku kalsoonahay ani markaa meesha aan joogay chief qabiil ma ahayn chief reer wajeeraan ah haddana waxaan wax ka doonaa ama aan inaan ii doorto aan leeyahay maha idin ka dhashay kale hadafkaygana waxaa waa inaan u noqdo tusaale kolley berri haddii idaad ii kaso haddii ilaa ii kaso aan soo galana cumrigeena waa kaas bal kaale haddana meeshii joogana ma qabi laakiin kaale mfano fiican oo berri dadka ay dhahaan waa dad noocaas aan dooran ninka madaxdana qof hadduu madax yahay qoyskoo madaxu ma aha ummadoo dhan madaxu yahay in wanaagooda iyo horumarkooda askatela marka haddii dad noocaas oo fikradaas qabo haddii ay meesha imaadaan waxaan ku rajo inay isbedel as la helo oo waxweyn iska bedelayeen مثلا أنا قدر وحنا هدد غير جوراء أمر حول دقته هذا الحمد لله إله بهروب نسي وحجر تبارك تعالى إن أمدا مرك حلق الروب كي هديته علماء هديته سياسي ومدة الحق هذا وهي قيرات إله نسي سوى النماء سياسي الماء برت كو ذاقان تاس بركة وحلنا في إنجليز تو إنلايت أما لكن وحسب برو taasa marka barnaamijkayga ah oo haddii ilaahay meeshaas ii kaso oo dadkan lagu walaalayo waxa location iyo consistency iyo subcounty in lagu kala xirnaanin dadka dad walaalo oo wax alla wax ilaahay ay isla qaybsadaan ani waxaan aman Soomaali they are naturally socialist Soomaali sidoo ilaahay ba abuurkooda waxay haystaan soo cunayeen inkastoo bariyahan waxa dadka kala fogay siyaasi
marka policygaas hore oo dadka la kori kuda isu soo dhaweynaa in dad loo helo oo isu keeno taasna diinta ay qabtaa. This is one of my policies.